wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac ayaa maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergabo waxaana wasiirka iyo wafdigu uu hogaaminayay oo baryahanba hawlo shaqo ku marayay gobolada bariga Soomaaliland lagaga hortagay galbeedka magaalada Ceergabo iyadoo soo dhaweyntiisana ka qayb qaadanayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergabo madax dhaqameed aqoon-yahan iyo dadweyne kale oo tiro badan kadib markii wafdiga wasiirku soo gaadheen madasha soo dhaweyntana waxa ay mid u gacan qaadeen mas'uuliyiintii u taagnaa soo dhaweyntooda wasiirkeennii Baasha Cali Jaamac waa wasiirka kheyraadka biyaha waa wasiir deegaanka waxa muuqata in Ceergabo maanta aan ku kala maqnayn indhaha idin macallina waxaan leenahay wasiir soo dhawow ku soo dhawow dalkaagii dadkaagii gaaminayo wasiirka biyaha Baasha Cali Jaamac aad baan u soo dhaweynaynaa wasiirka sida loo rabana soo dhaweyntii ka muuqata waxa ii faana wasiirka Baashe 5 sanadood baan isku kala saxin mudana wasiir waxaan kuu sheegaynaa in halkan ay kugu soo dhaweynayaan reer Ceergabo reer Sanaag oo aan kala hadhin xukuumadda waxaanu ka sugaynaa horumar xukuumadda waxaanu ka sugaynaa in gobolkan hoos loo eego fariinta xukuumadda waad naga gaarsiinaysaa sharaf iyo maamuus la u soo dhaweynaynaa wasiirka biyaha Baasha Cali Jaamac oo aan ku hambalyeynayno waxa uu ka qabtay dalka Soomaaliland intii uu wasiirka ahaa leenahay wasiir soo dhawow hadda soo dhaweynayo indhayn baaba talaba nagaga hadhaye wax kale oo iminka aad iyo aad u faahfaahsan ma samayno aad baanu ku soo dhaweynaynaa gobolkii Sanaag oo ku kala harin maanta indhahaaga ku aragtaa war indhaha ma leeyahay indhahaaga ayaad ku aragtaa si fiican baa lagu soo dhaweynayaa wax qabad badanna waa laga rabaa jacaylkaagu dawaad ka aragtaa iyo soo dhaweynta inta dadku leeyahay aan loo kala maqnayn waxaanu u doonaynaa goboladan bariga dawaad u soo baxdo wasiirkoodii tahay kuwii aad tagtana waxaad qabatay waa arkaynay annuna wixii oo kale baanu ka rajaynay wasiir ku soo dhawow laguma kala maqna iyadoo lagu xisaabtamayo wax qabadkaaga iyo intaad wasiirka ahayd wixii aad u qabatay gobolka waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gobolkii adoo wasiirka biyaha aad baanu kugu soo dhaweynaynaa wasiirka biyaha baanu soo dhaweynaynaa ina Cali Jaamac waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan baanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu ka leenahay kelmadda soo dhawow wasiir aad iyo aad baanu ku soo dhaweynaynaa haddana wasiirka mikrofon ku soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ujeedada socdaalkoodu salka ku hayo farxadna bay ii tahay sida aad u midaysantiin idinkoo wada midaysan aad soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya wixii dambe waynu soo dhan doonaa arrimaha biyaha iyo waxaanu ka qabanayno waa idinka warrami doonaa waxna waa ka qabanaynaa waxna horaanu ka qabannay gobolka innagu dhul baahsan baynu degannahay waxaa la yidhaahdaa bari dad ma jiro yaa dad galbeed buu jiraa marka waxay la tahay inaad sannadka diiwaangelintii u wada diyaargaroodaan idinkoo gamcahays haysta oo gobolku soo saaro diiwaangelin macno leh oo lagu dhegaystooo lagaga boqo intaasi kadibna waxaa wasiirka iyo wafdigiisa loo soo galbiyey gudaha magaalada Ceergabo Barkhad Maxamuud Geedi telefishinka caalamiga ee Soomaaliland News TV magaalada Ceergabo.